waxaan u sheegaynaa in hawshaasi naga soo gabagabooday naga soo dhammaatay maalintii ilaahay ugu talagalayna marxuumku gudgalayo ehelada allah u naxariistay gaashaanle cabdi cali nuur oo 18 bishii labaad lagu dilay saldhiggii uu maamulayay ayaa waxay caawa shaaca ka qaadeen waqtiga la aasi doono marxuumka kulankan oo goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda qorsheynta barasaabka gobolka Gabiley agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda qoyska siyaasi Abiib ubadkii uu dhalay allah u naxariistay gaashaanle cabdi cali nuur walaaladii iyo waliba ehelada iyo qoyska allah u naxariistay marxuumka ayaa waxa halkaasi ka shaaciyay waqtiga iyo goobta lagu aasi doono allah u naxariistay gaashaanle cabdi cali nuur jiif caaqil cabdiraxmaan maxamed baadil waxaanu jiif caaqil ku sheegay in maalinta bariya aas qaran loogu sameyn doono xabaalaha baqiic ee waqooyiga magaalada Hargeysa. bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli ala sayyidina mawlana maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. halkan waxaan ka ilaaminaynaa aaska marxuum cabdi cali nuur ilaahay naxariistanaa ka waraabiyo oo berita jimcaha haddii ilaahay idhaa xabaalaha baqiic aanu ku aasi doono 10 subaxnimo kana qaadi doono cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxaanu halkan ku joognaa odayaashii dhaqanka ee marxuumka matalayay walaaladii caruurtiisii kuwa adeerka u ahaa waanu ku dhanna haddaan nahay eheladii marxuumka cid kasta oo salaada jinaasada ka soo qeyb galaysa oo danaynaysa waxaan u sheegaynaa in laga qaadi doono 10 subaxnimo mar labaad cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana lagu aasi doonaa haddii ilaahay na gaarsiiyo xabaalaha baqiic ee waqooyiga magaalada Hargeysa. salaada jinaasada haddii ilaahay idhaa waxaanu ka dhigi doonaa barxadda xabaalaha baqiic hortooda ee inta badan lagu tukado salaada jinaasada. cid kasta oo arrintaasi khusayso mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u sheegaynaa in hawshaasi naga soo gabagabooday naga soo dhammaatay maalintii ilaahay ugu talagalayna marxuumku gudgalayo ubadkiisii ooryihiisii ehelkiisii aqrabkiisii qaranka jamhuuriyadda Somaliland khaasatan ciidankii biliisku ka midkaa dhammaantood ilaahay sabiriye baana ka siiyo. waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkan jaraa'idan qabtay anigoo jiif caaqil cabdiraxmaan maxamed baadil isla markaana caaqilkii marxuum cabdi cali nuur iclaanka aan sheegay in sidaa loola socdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabilaahi towfiiq.